الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذلكين صاحبة نجد جيسانية إذا عدا كل مية مقدشة هيركيد FM سديتني سديت دبع إبر ميكا تس مقدشة يدقى ندى ودو شبيلة هوسية شبيلة الدحاء يسدو كلا صاحبة كلا نجلا السعودة لدها إنترنت كلايف ستريم كبيج كنا أما ويب سايت كنا راديو كل مية دوت نت يبيج كنا فيسبوك كلنا هاي KNN oo aad labaduba toos naga maqlaysaan meel kastoo aad joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan waxaad soo dhawaataan barnaamijkii ugu dambeeyay ama tartankii kama dambayska ahaa ciyaartii ama kulankii finalka ahaa ee tartan aqooneedka dugsiyada sare gobolka Banaadir ee idaacadda kulmiye sanad waliba ay qabato bisha Ramadaan isla markaana sanadkan markii afraad oo xiriir ah ay tabagelinayso jaamacadda Salaam isla markaana su'aalaha jaamacadda Salaam ay soo diyaarinayso barnaamijkeena maanta oo ay tahay maalintii ugu dambeysay sanadkan oo labada dugsi u soo gudbay finalka aan halkan ku tartansiinayno waxa ay kala yihiin Al-Anwar iyo sidoo kale Jaabir bin Abdullaahi oo ka soo gudbay wareegii koowaad wareegii labaad wareegii saddexaad iyo ugu dambeyn sidoo kale ka soo gudbay wareegii ugu dambeeyay ee afraad dugsiyadu ku kala baxayeen isla markaana iyagu ay u direen inay tartamaan dugsiyadii shalay ku tartamay kaalinta saddexaad ee ugu dambeyn ku soo baxay dugsiga Macmuur taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 28ka bisha sagaalaad ee Ramadaan 1441 hijriyada dhinaca kale waxay tilmaamaysaa taariikhdu 22ka bisha shanaad ee May 2020 maanta waa maalintii 27aad ee tartankeena waana maalintiisii ugu dambeysay oo halkan Al-Anwar iyo Jaabir bin Abdullaahi ayaa tartanka aan qabanayna midkood waxa uu gali doona kaalinta koowaad halka kan kale ee laga adkaado halkanna uu kaalinta labaad gali doono si toos ah howlkan ama xarunta tartanka uu ka soconayo idaacadda kulmiye waxa uu wada sugan guddiga labada dhinac ee tartanka waa dhanka KNN iyo sidoo kale dhanka kale ee maamulka jaamacadda Salaam xubnaha ka socda waxa kale oo maanta maadaama ay tahay maalinta tartanka ugu dambeysay aan idin hayaa marti hasaahate waxaan ku hormarayaa magacyada marka aan fiirino dhanka iyo maamulka jaamacadda Salaam Ustaad Cabdi Fataax fiiramada xiriirka arrimaha bulshada ee jaamacadda Salaam uu nala joogaa injineer Ayuub oo maamulka jaamacadda Salaam isaguna kamid ah sidoo kale anigoo Cabdiqani Cabdullaahi ah iyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo dhanka KNN sidoo kale waxa nala jooga oo KNN ka tirsan xubnaheeda Salaad Isaaq Daawud oo dhanka iyo dhiirigelinta ardayda aan uga mahad celinayno inuu noo qaabilsanaataan iyo markii tartanka uu soo bilowday farsamada idaacadda waxa hagaajinaya Cabdirasaaq Xasan halka muuqaalka aad YouTube-ka ama baraha kale ee bulshada ka daawanaysaan ay inoo kala hagaajinayaan Mawlid Xaaji Cabdi iyo sidoo kale Cabdirashiid oo isaguna dhanka jaamacadda Salaam ka socda una mahad celinayno sida wanaagsan ee shaqada uu noo la qabanayo qadka telefoonka haddii aan idin sheego qofka ku jira waa xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si gaar ahna uga mid ah xubnaha baarlamaanka sida dhowbahada waxbarashada oo la shaqeeya maadaama maanta waxaan soo xiriirnaa uu yahay munaasabad tartan aqooneed soo socday muddo bil ah si uu halkan ardayda kelimadiisa dhiirigelinta uu yiraahdo jaamacadda Salaam iyo idaacadda kulmiyana sida uu arko tartanka iska kaashanayaan aan marka hore soo dhaweeyo xildhibaan Dalxa haddii aad maqasho soo dhawow kulmiye waa idin salaamaya salaanta islaamka marka hore adinka iyo dhammaan runtii dadka qiimaha leh ee barnaamijkan aad u qadarinta u mudan ee waxbarashada runtii saamaynta kule oo haddii ay ahaan lahayd jaamacadda Salaam oo runtii jaamacadaha mugale ee magaca iyo maamuuska qayaynta waxbarashada kuwa hadda safka hore kaga jira ay tahay iyaga iyo guud ahaan runtii macallimiin iyo maamul inta idinkala joogta oo aad munaasabadan soo wada diyaariseen iyo runtii intii Ramadaan lagu jiray ee ardayda Soomaaliyeed ee meesha ayadana madashaasi joogta oo runtii oo ayagana ay yihiin kuwa aan runtii qiimeynayo runtii qiimaha waxbarasho oo intiinaba aan idin leeyahay runtii magaciina ha jiro guud ahaantiina iyo inta kale ee runtii arrinta ay danaynaysana maanta ay idinkala socdaan hawadana waxaan salaamayaa guud ahaantiina salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay xildhibaan Professor Dalxa waad mahadsan tahay inaguna salaan la mid ah ayaan si guud anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda Salaam iyo kan idaacadda kulmiye guddigaba kaaga mahad celinayna sida noola qayb qaadatay noogana aqbashay casuumadan maanta kuma wareysanayo dhanka iyo siyaasadda oo sida hore u dhici jirtay oo kale kuma weydiinayo su'aalo ku saabsan baarlamaanka ama khilaafyo siyaasadeed
ama waxqabad dowladeed midna waxaan ka hadlaynaa arrimo waxbarasho waana kula kaftami doonaa in yar oo waxbarashadaadii waagii aad yarayd ayaan rabaa in ardayda maanta fadhiisa aad wax uun ka xasuusiso marka hore soo dhawow dib ma noo xasuusin kartaa meeqa sana kasta wareegatay marka dugsiga sare ka baxday runtii su-aal aad u qiimo badan oo noloshayda taabanaysa waaye aniga waxbarasho waxaan ku soo qaatay magaalada Walaweyn oo aan ku dhashay daafeedna loo yaqaan 90 kilomitir u jirta gobolka Shabeellaha Hoose runtii caasimadda marka loo fiiriyo waxaan ku soo qaatay waxbarashadii dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe dugsiga sare waxaan ku soo qaatay magaalada ama aan ku qaatay Muqdisho oo maanta aan ku noolahay caasimadii secondary markaan dhameeyay takhasus diploma iyo master maanta waxaan ku soo qaatay oo ku soo takhasusay cilmiga lagu yaqaano linguistic ama luqadaha ayadoo maaragtay dalka Suudaan oo kadib markii aan jaamacadda ummadda kulliyadda afafka aan ka baxay waxaan markaa intii aan waxbarashada ku dhex jiray aan soo dhamaystay takhasuskeyga aan ahaa bilowgii horena markaan jaamacadda ka dalin jebiyey kulliyadda luqadaha ashiisan ama barakaaliye oo markii dambana waxbarashada iyo takhasuska markaan u aaday Suudaan aan soo dhamaystayna waxaan noqday macallin jaamacadeed aad baad mahadsan tahay maadooyinkii dugsiga sare maadadee ayaad ugu jeclayd maadadee ayaana kugu adkayd maadaama dugsiga sare loo yahay inta badan ardaydu ay tahay halka ay caqabada ugu horeysa kala kulmaan dhanka waxbarashada marka laga fiiriyo runtii waa su-aal aad iyadana maaragtay qiimaheeda leh runtii aniga ma ahayn dadka physicska iyo chemistryga iyo maaragtay aad maaragtay u jecel laakiin waxaan aad maaragtay aan ugu roonaa dhinaca luqadaha maxaa yeelay Englishka marka la yiraahdana waxay jaamacadda yahay luqadda minorka laakiin marka loo fiiriyo dhinaca secondary-ga macallimiin oo aad runtii u diyaarsan oo Soomaaliyeed oo aan secondary-geeyay iyaga wax maaragtay dhinaca ahaa dad oo Carabiga aad ugu wanaagsan darafka iyo maaragtay iyo naxwaha iyo adabka iyo maaragtay waxyaabaha aadka maaragtay la xiriira dhinaca history-ga iyo ama maaragtay waxaan ahaa nin aad iyo aad dhinaca aad maaragtay scientific-ga ooga helin laakiin dhinaca artiga maaragtay aad u jeclaa ilaa takhasuskeygiina markii dambe doorashadaydi kulliyadda luqadaha iyo risaalooyinkii ama qiimayaashii aan qoray kulli dhammaan ay ahaayeen kuwa la xiriira anthropology iyo maaragtay civilization iyo waxa afka carabiga lagu yidhahdo lisaaniyaad ama linguistics waya xildhibaan professor dalxa marka la yidhaahdo dadka inta badan waxaa ku soo dhacaya siyaasi waxaa ku soo dhacaya professor jaamacadeed waxaa kale oo ku soo dhacaya nin bulshada aad u dhexgala iyo fannaan oo waa timaraa tiri waa 15 jir sheekh wacan ee dhalay ku haystay marka goormeed markaad fiiriso waqtigaadii dugsiga sare fanka iyo sidaad isku haydan fanka anigoo arday magaalada Walaweyn jooga ayaa hobby u ahaa ama hiwaayadahayga mid ka mid kubadda cagta waan ciyaari jiray oo waxaan ahaa dadka safka hore maartay tiimkii markaa magaalada Walaweyn hormuudka ka ahaa ragii maartay soo baxay oo ilaa iyo dekadaha aan soo gaaray oo hadda aan ka xasuusto wasiirka gargaarka maartay iyo musiibooyinka wasiir Xamza oo aan dekadaha maartay oo aan isla ciyaarnay bilowgii hore aan ku jiray ciyaarihii ardayda iyo goboladana waan soo safan jiray maartay dhinaca kaliya ciyaariyahana waa dhaydana yaqaanaan sportina waan ahaa laakiin fanka waxa waaye riwaayadihii sida marka la xirayo xafladaha waalidiinta lagu casuumi jiray iyo dhammaan markii sharafta ayaa iyagana waxaan ka noqday dadkii aadka maartay dhalinyarada ahaa markaasi xagga codadka ay soo xulan jirtay maartay qaybta waxbarashada meesha aan kaga jiray degmadayda laakiin waxaan aad marka uga caan baxay markii Balidogle على ديري علي جاب طلعوا نحريس فنانين واوينا وهذا إذا ما ذا يكسر جيدين مقالة يسود بجين روايري في آخره يهست البور ودكتها ما أرتدي ما يفوتها يهست إذا شنكرون يونيك اللي فإنه على ديري علي جاب هل كان كلا قصدي يا سعيد وأنا أقول قرتي marka laga hadlay dhanka waxbarashada maadaama tartan maanta aan gabagabadiisa joogno ama kulankii finalka aan joogno
ardaydana la xasuusinayo kaalimaha suugaaneed ee dhanka waxbarashada inkastoo kooxda iftin ee wasaaradda waxbarashada ay heesaha ugu badan waxbarashada qaadi jireen hal iyo laba kaalmihii suugaaneed ama gabayo ha noqdeen ama hees ha noqoto ereyada aad xasuusan karto oo dhanka waxbarashada maxaad ardayda xasuusin kartaa ardada waxaan xasuusinayaa hees hadda aynan caam bixin laakiin markaan dugsiga hoose dhexe hadda nin generaal ah oo saaxiibka iyo cabdirasaaq jaamac muuse la yidhaahdo oo hadda isaga weli ka tirsan aan walaynayo maanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta madaxtooyada isagoo markaa jooga ay u dambeysay xilligii madaxweyne xasan sheekh balse heestaasi waxay tilmaamaysa dhiirigelin anagoo dugsiga hoose dhexe wada dhiganayna ayaa heesta uu horiyey wuxuu leeyahay daahilay horteeno durba lagu dhergaayaan dacalkeennii qabane dariiqaad u wacaano dunidii ku orodaan annaguna ku dayane waxaan nahay dad ururo tacliin dabada haystiyo ardadii dalkaan nahay baxii dadkaan nahay aad iyo aad mahadsan tahay su-aashiida ugu dambaysa annagoo kaga mahadcelinayna fursadadna siisay waxaa ku dhegaysanaysaa ardayda ka kala socota al-anwaar iyo jaabir bin cabdillaahi maamulkii jaamacadda salaam iyo xubnihii kale ee idaacadda kulmiye kelimad kooban maxaad intaba ugu dardaarmi kartaa adigoo hal daqiiqo ku soo koobaya tartankanna maanta uu yahay final annaga waxa aan ka hadlayno waa waxbarasho cilmi iyo aqoon saaxiib u ah waxbarashada iyo cilmiga iyo aqoontana ilaahay baa darajo u yeelay iyo ninkeeda maxaa yeelay rasuulkeena maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay markuu isaga qur-aanka aayadda u horeysa ee soo dejiyey ee lagula hadlay jibriil uu soo dibo waxay ahayd iqra akhri oo rasuulku aanan waxba akhrinin ee loogu celceliyey oo asigoo baranin maxaan akhriyaa uu leeyahay iqra bismi rabbika alladii markaa ilaahay uu ku yiri waxyigii rasuulka ee jibriil ugu soo dhiibay meeshaad ka dareemaysaa qiimaha uu leeyahay ilaahay hadduu dhaaranayo makhluuqaadkiisa iyo wuxuu ku dhaaranayaa ma aragtay qudradda iyo waxaa isaga maanta uu awooddiisa uu ku muujinayo ilaahay markuu dhaaranayo waxa waaye nuun walqalami ayaa ka mid ah waxaan ku dhaartay qalinka iyo nuun yacni waxaasoo dhan xigmooyin fara badan baa ma aragtay maadaama waqtiga uu yar yahay ayaa cilmiga ee lagu ammaanay oo ninkii ku dadaala oo maanta soo jeeda man talaba alculaa sahara layaali ninkii wax badan ninkii raba inuu horumaro ama maaragtay faciisa inuu dhaafo habeenkii waa inuu soo jeedaa cilmigana weliba yaraanta lagu ammaanay nin cabdullaahi niftawi la oran jiray ayaa waxa waaye wahuwa fii madxi tacallumi fi siba isagoo yaraanta uu ku ammaanayo in wax la barto ayaa wuxuu yidhi cilmiga yaraanta wuxuu lamid yahay maaragtay kanaqshi fi lxajar dhagaxa oo la xardhayo ka weligiis ismatirayo oo waxa waaye cilmiga qalbiga ayuu ugu sawirmayaa wixii ay yaraanta aad ku baratid laakiin markaad weynaato waxaa laga yaabaa inaad ilowdid marka xikmadda ama cabdi cilmigu wax lasoo koobi karo maaha cilmigu waa nuur jahliga waa mugdi aqoon la-aan waa iftiin la-aan wax badan baa maaragtay laga yiri waa la amaanay inta maanta adduunka lagu horumaray laisku dhaafay waa cilmiga annaga waxa nala degay waa aqoon yarida iyo jahliga dhibaatada dhan aaba u ah hadday qabyaalo tahay hadday cadaalad daro tahay hadday dulmi tahay hadda waxa isku dilayna micno darada jahli baa aaba u ah marka waxaa loo baahan yahay dhalinyaro inaad ku dadaashaan تعلموا صغارا لتسعدوا كبارا ويرنكي يرانتينا وحكو برتا ساد مركز ويناتان أدو ليبانتان وآد نقطان كوا معركتي هرمر جاري سنقوانينا يا أبدا aad mahadsan tahay xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayuu ahaa waana ku mahadsan yahay saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkeena ayaan markan gudagali doonaa qaybihiisa kale si toos ah waxaan mikrofoonka ugu wareejinayaa Cabdullaahi Maxamed Cali si tartankan kama dambaysta ah dugsiyada halkan ku tartamaya ee Al-Anwar iyo Jaabir bin Cabdillaahi uu soo saaro mid ka su'aasha u horeysa dadka la weydiin doono ardaydana waxaan ka codsanayaa inay u diyaar garoobaan su'aalaha cabdiqani waa mahadsan tahay tartanka maanta waxa uu dhex mari doonaa dugsiyada sare kala Jaabir bin Cabdillaahi Al-Anwar oo nasiib u yeeshay inay soo gaaraan kama dambaysta ama finalka tartanka oo ay halkaasi ay ka dhigan tahay in tartanka oo dhex marayay 32 dugsi oo ka mid ah dugsiyada sare gobolka Banaadir ku yaala ay labadooda oo kaliya ay ka soo hareen oo 30 kale iskuul ay hareen haddii aan eego Jaabir bin Cabdillaahi Al-Anwar sooyaalkooda tartankan muddada ku dhow bisha inoo socdo
iyo dugsi walba marxaladihii uu soo maray haddii aan dib u milicsano waxaan ku hormarayaa dugsiga Al-Anwaar oo qaybka labada iskuul ee maanta halkan ku tartamaya soona gaaray finaalka. Al-Anwaar waxay ka soo gudbeen ilaa 4 marxaladood ama 4tii wareeg ee tartankani uu soo maray wareegiisii ugu dambeysay aan maanta ku guda jirno. tartankii ugu horeeyay Al-Anwaar waxay isqabteen dugsiga Sheekh Daawud oo ay ka badiyeen. waxaa ugu xigay dugsiga kale ee Nagayle, waxaa ku xigay dugsiga Salaaxudiin, waxaana ugu dambeeyay dugsiga Macmuur, halkaasi oo ay tahay in wareegii koowaad, wareegii labaad, wareegii saddexaad iyo wareegii afraadba ay dugsiyadaasi ay soo reebeen oo semifinaalka ay xusid mudan tahay in tartan aad u adag ay la yeesheen dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Macmuur oo xaqiiqsaday inuu kaalinta saddexaad galay, balse iyagu ay ka baadeen ama ay soo mareen in ay yimaadaan wareegga ugu dambeeya ama finaalaha. haddii aan eego dhanka dugsiga Jaabir bin Cabdillah, iyagana intaas oo marxalad ayay soo mareen oo 4 wareeg ayay ka soo gudbeen. wareegii koowaad waxa ay la kulmeen dugsiga Kaaraan oo ay ka soo badiyeen, wareegii labaad waxay la kulmeen dugsiga Heegan oo ay ka soo badiyeen, wareegii saddexaad waxay la kulmeen ama 8 dhamaadka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Nashaad oo tartankan difaacanayay. ayna xusid mudan tahay in 3dii sano ee ugu dambeysay 2 sano kamid ay qaadeen, sanadna ay galeen kaalinta labaad. kulan aad u adag ayuu ahaa oo aadna saadaalo kala duwan looga bixinaya, balse dugsiga Jaabir bin Cabdillah nasiib waxa uu yeeshay in Al-Nashaad uu soo dhaafo. kulankii ugu dambeeyayna Al-Bayaan oo sidoo kale ka mid ahaa dugsiyada aadka loogu saadaalinaya aadkan u adkaa ayay soo reebeen, taas oo ay ku soo tigsadeen finaalaha ay maanta ay taagan yihiin. balse maanta waxa ishayo waa Al-Anwaar oo intaas soo jiray iyo Jaabir bin Cabdillah intaas soo jiray oo la doonayo markii aad xoog weynta dhihi jirtay xoog weyntii ugu dambeysay isku timid, inkastoo meelaha qaar aad u maleysay in labadooba aysan xoog ku dhaafin, balse nasiib ay ku dhaafeen oo labada dugsiba marxalada waxaa soo maray loo filayay in ay hareen oo su'aalihii ugu dambeeyay ay dhacday in qolada ka soo horjeeda ay qaldeen, iyagana ay ka faa'iideysan, sidaasina ay ku soo gudbeen. marka waa karti, aqoon iyo nasiib la isku daray waxyaabaha ay Al-Anwaar iyo Jaabir bin Cabdillah finaalaha u yimaadeen. Cabdisaaq kaftamayna waxa uu yiri waxa ay maqan oo yiri timo weyn iyo wadaado labada dhinac. marka dhan walba maanta markaan eegno marka dad is soo diyaariyay, waqti badan soo bixiyay, ducada iyo quraanka uu la socdo, bal kama dambayska tartankan ogaan doonaa halka ugu dambaysa. marka haddii aan tartankeena gudaha u galno, dad badan aan sugayo oo ay ka mid yihiin 30 dugsiya haray, bal Al-Anwaar iyo Jaabir bin Cabdillah bal maanta kay guusha ay raacdo. tartankeena saa u guda galna marka waxaan doonayaa in Jaabir bin Cabdillah Al-Anwaar ay labo kale soo kala dirsadaan si ay ugu qaadaan 2 nambar oo miiskan dushiisa saaran oo kale ah 1000 iyo 2000. ballan soo degdeg maanta waa nambaradii ugu waaweynaa. nambarada yara dhaw anaga dhamaadeen marka maanta anagana nambar waaweyn aan ku soo xiraynaa. haddii aan dugsiga la sii kaftaminta soo socdaana 1000 iyo 2000 cidii akhri weyso dhibcaha ka go'ayo maadaama laakiin salaad ma aaminsanaa u maleena dad karaar iyo hebel ka jawaabay in 1000 iyo 2000 akhri weynayaan mid qaado. ku dhaw mikrofoonka magacaada noogu bilow kadibna warqadda nambarka kugu xusan. bismillaah, anigoo magacay Mukalthum Cabdalla Caamir kana soo iskuulka Jaabir bin Cabdillah waxaa qabsanay lambarka 2000. nambarka 2000 adiguna ku dhaw mikrofoonka sidaas la mid ah magacaada dugsiga aad matalaysay nambarka ku soo baxay. bismillaah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Yunus Maxamed Awal, tartamaya dugsiga hoose dhexe iyo sare Al-Anwaar ka sameeysan Artan. lambarka nasiib ahaan noogu soo aaday waa lambarka 1000 amba 1000 ayaa noogu soo aaday. Cabdullaahi, su-aashii ugu horreysay tartanka labada dhinac way ka jawaabeen. su-aashii ugu horreysay labada dhinac way ka jawaabeen oo nambarada way akhristeen 1000 iyo 2000. waxaa lagu bilaabi doonaa dugsiga Jaabir bin Cabdillah oo nambarka 2000 aad qabsaday. waayahay saf soo gala. safdheeraan ku jirnaa waxaan sugayna waa su'aasha. safdheeraan ku jirnaa waxaan sugayna waa su'aasha. safdheeraan ku jirnaa waxaan sugayna waa su'aasha. waayahay su-aashii u horreysay barnaamijka waa su-aashii koowaad ee tartanka finaalka ah, waana su-aashii u horreysay ee la weydiinayo ardayda Jaabir bin Cabdillah dhagaha fura. waxaad soo sheegtaa nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan Kaliimullah ee uu Ilaahay la hadlay. mar labaad aan ku celiyo, soo sheega ardayay nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan Kaliimullah. marka saddexaad ee ugu dambaysa ardayda Jaabir bin Cabdillah dhagaha u fura su-aashan diiniga. waxaad soo sheegtaa nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan Kaliimullah. waxaan filayaa inaad garateen jawaabtana aad la soo degdegtaan insha Allah.
waayahay ardayd ka socota jaabir baa nala joogta بسم الله أنا قوم مجا عيق السر عبد القادر علمي كان سعت سكول جابر بن عبد الله ويدين نلودي ديها كور علينا نبي موسى عليه السلام sax iyo qalad aan guddiga hor dhigo su-aashan oo ahayd su-aashii ugu horreysay ee tartanka su-aashii ugu horreysay oo diini iyo su-aashii ugu horreysay oo la weydiiyey tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi waxay u dhicisay sheeg nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaano kaliimullah jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid saxa oo waa nebi muuse calayhi salaam dowlo iga farxi saasaan kaa rabaa anna waa kaa farxinaa laba dhibcood oo bacyaal waaweynta ah oo dhar ugu jiro dharkii labiska iidda ah aan meel kuu dhigaa meeshaan kuu dhigaa in haddaan kuu sheegaa dhegta fur hee jaamacadda salaam hee qaybteeda lagu barto engineerinka meehma ii dhigay haa sameen soo qaadaa bacdul afur insha allah gondho ka soo siiso su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii labaad ee barnaamijka ahna su-aashii labaad oo diini ahna su-aashii u horreysay ee al anwaar arday dhagaha u fura waxaad soo sheegtaan nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan ruuxullah mar labaad aan ku celiyo nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan ruuxullah soo sheega marka saddexaad ee ugu dambaysa ardayda al anwaar waxaa laydinka rabaa inaad soo sheegtaan nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaan ruuxullah waxaan filayaa in aad jawaabta la soo degdegtaan insha allah وهاجاك أرضي كسعود على أنوار سودو بسم الله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مقاعي ويونس محمد أبو بكر ونترتمى يدكسيه هو سر حي وسريع الأنوار كسلمية سنعة سؤال جوابتي بإذن الله الكريم وحين قدمت ونبي الله عيسى عليه السلام aan sax iyo qalad eegno su-aashan oo ahayd su-aashii labaad ee tartanka su-aashii labaad oo diini iyo su-aashii koowaad oo la weydiiyey tartamayaasha dugsiga al-anwaar waxay u dhaceysay sheeg nebiga lagu magacaabo ama loo yaqaano ruuxullah jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid saxa oo waa nebi ciise calayhi salaam bravo hadda bareeja waaye laakiin waa leesbuusi doonaa hadda bareeja waaye laakiin waa leesbuusi doonaa bravo laba dhibood waxaan kuu dhigayaa jaamacadda salaam qaybteeda ku taala tale kasoo horjeedka abdiqaadir bacdul afur ka soo qaado insha allah su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa markan waa su-aal xisaab ah waana su-aashii labaad ee ardayda dugsiga jaabir bin cabdilaahi dhagaha u fura waxaa laydinka rabaa ardayay imise qaab ayaa 5 buug oo midabo kala gidisan leh la isugu hagaajin karaa iyaga oo safan mar labaad aan ku celiyo su-aashan xisaabta ah soo sheega imise qaab ayaa 5 buug oo midabo kala gidisan leh la isugu hagaajin karaa iyaga oo safan marka saddexaad ee ugu dambaysa imise qaab ayaa 5 buug oo midabo kala gidisan leh la isugu hagaajin karaa weeyaan iyaga oo safan ardayda jaabir inaad garateen ayaan malaynayaa waa tahay arday baa ka socda jaabir bin cabdilaahi بسم الله مجيء وفاة عبد القادر السمان أهنا وترتمي سكول جابر بن عبد الله جوابته بقول يلا باتنقاب waayahay sax iyo qalad su-aashan oo ahayd su-aashii ugu horreysay oo xisaab iyo su-aashii labaad oo la weydiiyey tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi waxay u dhaceysay mise qaab ayaa 5 buug oo midabo kala gedisan leh laiskugu hagaajin karaa iyagoo safan jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa oo waa 120 sifood ama 120 nuuc
tobanka looraan ahay tiibe waa lay tiblaataagna ma le helaa wadaay kalar haddaa sheegtay waa laisku aadaadiyey 120 waa laga dhigay aday ku taallaa 2 dhibcood iskuulka sare hoose dhexe ee jaabir bin cabdullah waxaan idin dhigayaa radio kulmi iridkiis insha allah ka soo qaata bacdul afur su'aashii saxday sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxday sacabku waa inaan ku siinaa waa su'aal kale oo xisaaba si guud barnaamijkana waa su'aashii afaraad dhanka al-anwaar ayay ku socotaa oo ay su'aashoodii labaad u tahay imise qaab ayaa xubno 5 qof ah looga soo xulan karaa 9 qof mar labaad aan ku celiyo imise qaab ayaa ardayay xubno 5 qof ah looga soo xulan karaa 9 qof marka saddexaad ee ugu dambaysa imise qaab ayaa xubno 5 qof ah looga soo xulan karaa 9 qof ardayda al-anwaar inaad garateen ayaan rajaynayaa waayahay ardayda al-anwaar jawaabtaa idinkaga fadhiya fadlan ardayga soo istaagay waxaan ka codsanayaa maadaama ay daqiiqadii soo dhammaatay inuu soo degdego oo mikrofoonka ku dhowaado bismillaah magacayga waa mikaa'il nuur aadan kana socda dugsiga hoose dhexe sare ee al-anwaar akisdhama yaasiin cartan su-aasha jawaabteedaan isku day waxay noqon doontaa insha allah 126 qaab ku celi mar kale 126 qaab waayahay guddiga hordhigo su-aashan oo ahayd su-aashii labaad oo xisaaba iyo su-aashii labaad oo la weydiiyo tartamayaasha dugsiga al-anwaar waxay u dhaceysay imise qaab ayaa xubno 5 qof ah looga soo xulan karaa 9 qof jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid saxa oo 126 siyaabood ama 126 qaab dowlo dugsiga hoose dhexe sare ee al-anwaar dooleed ka soo gashaa iyo isdoorisaaba jawaabtaada diyaar waaye ay dheheen dugsiga hoose dhexe ee al-anwaar 2 dhibcood waxaan idin dhigayaa galaaskiina hortiisa insha allah bacdul afurka qaata su'aashii saxday sacabku waa inaan ku siinaa su'aashii saxday sacabku waa inaan ku siinaa waayahay maadaama maanta tartanka uu yahay final ama kama dambays dad badan ayaa nala socda sahal saaxiib la yidhaahdo oo Sweden jooga waa uu soo hadlay waxa uu yidhi Sweden ayaa idinkala socda tartankana meel xiiso ayuu marayaa ardayda nasiib aan u rajaynayaa saacada wuxuu yidhi maanta su'aalo ayaan qabaa yidhi 3 su'aalood tan hore waxa uu yidhi Cabdiqani waxaan weydiinayaa tan iyo markii uu tartanka soo bilowday sheeg tirada su'aalaha aad ardayda su'aasheen aad weydiisay ma hayo saaxiib su-aasha labaad waxay ku soo Cabdullaahi waxa uu yidhi ha sheego tirada su'aalaha ardayda soo hareer martay ee uu ka jawaabay Cabdullaahi laga rabaa adhow fursad u siin doonaa waxa uu yidhi saaxiibna salaad ama salaad waxaan weydiinayaa uu yidhi isna ha sheego tirada dhibcaha uu bixiyey imise dhibcood ayaad dhigtay raadiyo kulmiye warga sahal waxaan waayahay su-aalahaas oo soo laaban doonaa tartan kale oo adag ayuu isaguna keenay su-aashan waa xisaab mar kale waxay ku socotaa ardayda dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi oo ay u tahay su-aashoodii saddexaad si guud barnaamijkan ay tahay su-aasheenii shanaad tibix u taagan tiro togan ayaa loo qaybiyey 15 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo ama aan u helno hal hoos dhigay 2 waa tee haddaba tirada togan
ee ay tibixdu u taagan tahay aan ku celiyo mar kale tibix u taagan tiro togan ayaa loo qeybiyey 15 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo hal la hoos dhigay 2 haddaba waa tee tirada togan ee ay tibixdu u taagan tahay marka saddexaad ugu dambaysta ardayda dhagaha u fura tibix u taagan tiro togan ayaa loo qeybiyey 15 waxaana laga jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo ama aan u helno hal la hoos dhigay 2 haddaba ardayay waa tee tibixda togan waa tee tirada togan ee ay tibixdu u taagan tahay hagaag ardayda dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi jawaabta halin kaga fadhiya Jaabir bin Cabdillaahi jawaabta fadlan la soo degdega bismillaah anigoo magacayga kaltum Cabdalla Caamir kana soo iskuulka Jaabir bin Cabdillah su'aashina loo weydiiyay hadaan ka jawaabno insha Allah waxay noqon doontaa x waxay la mid tahay 15 loo qaybiyay 8 waayahay sax qalad aan jawaabtaasi guddiga hor dhigo su-aashan waxay ahayd su-aal kale oo xisaab waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi oo ay u tahay su-aashii saddexaad ee tartanka oo idin la weydiiyo su-aashuna waxay u dhaceysay tibix u taagan tiro togan ayaa loo qeybiyey 15 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo hal la hoos dhiga 2 waa tee tirada togan ay tibixdu ay u taagan tahay hamar noogu dhawaaq maxaa dhad hamar ku celi x waxay la mid tahay caadi hadal waxay la mid tahay 15 loo qaybiyay 28 haya haddii aan eegno marka su-aashaas jawaabta ay ka bixiyeen u tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi waa mid aanan sax ahayn haddii ay ka faa'iideysan karaan ardayda kale ee Al-Anwaar ka faa'iideysigu ma lahan waqti la isa sugayay soo degdeg Asma Marsal ka socda iskuulka Al-Anwaar su-aasha jawaabteedu waxay noqonay laga jaray 5 x waxay la mid tahay laga jaray 15 loo qeybiyay 28 waayahay marka lagu diga su-aashii xisaabtaheed ee soo hareer martay tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi Al-Anwaar iyagana ma aysan ka faa'iideysan haddaba jawaabta saxda ah wakaalintaade jawaab kulmiye waan kugu kalsoone jawaab kulmiye wakaalintaade jawaab kulmiye waan kugu kalsoone jawaab kulmiye Cabdullaahi su-aashu waxay ahayd su-aashii saddexaad ee xisaab ah waxayna u dhaceysay tibix u taagan tiro togan ayaa loo qeybiyey 15 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo hal hoos dhiga 2 waatee tirada togan ay tibixdu ay u taagan tahay ay su-aashu ahayd jawaabtuna waxay u taagan tahay 5 haddii aan mar kale ku celiyo tibixdu waxay u taagan tahay 5 jawaabtii kulmiye waa kaamile uqorabuga maskaxdana ku hay uqorabuga maskaxdana ku hay uqorabuga aqoonta uqorabuga maskaxdana ku hay uqorabuga aqoonta waayahay markan waa su-aal kale oo xisaab ah waxayna ku socotaa ardayda Al-Anwaar oo ay su-aashoodii saddexaad tahay sugud barnaamijkan ay tahay su-aashii 6aad tibix u taagan tiro 10 ayaa loo qeybiyey 30 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo laga jaray hal la hoos dhigay 4 waa tay haddaba tirada 10 ee ay tibixdu u taagan tahay aan ku celiyo mar labaad tibix u taagan tiro 10 ayaa loo qeybiyey 30 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo laga jaray hal la hoos dhigay 4 haddaba arday waa tay tirada
toban ee ay tibixdu u taagan tahay. marka saddexaad ee ugu dambeysa tibix u taagan tiro 10 ayaa loo qaybiyey 30 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo laga jaray hal hoos dhigay 4. haddaba ardayda Al-Anwaar waxaa idinka rabaa waatee tirada 10 ee ay tibixdu u taagan tahay. waayahay ardayda dugsiga Al-Anwaar jawaabta idinkaga fadhiya. Al-Anwaar jawaabta idinkaga fadhiya 3 jeer baan idin yeeri doonaa haddii aad ku soo istaagi weysaan waa idinka gudbayaa. waa hagaag arday baa soo istaagay. magacayga waa Suleymaan Cusmaan Mursal ka socda iskuulka Al-Anwaar su'aasha jawaabteedu waxay noqonay waa 907.5 sax iyo qalad aan eegno. su-aashii xisaabteeda la weydiiyo tartamayaasha dugsiga Al-Anwaar ma aysan ka jawaabin. haddii ay ka faa'iideysan karaan gacantay ka taageen. waayahay arday baa soo istaagay. waa hagaag waayahay isku day adeegana. bismillaah magacaygu Haruus maan sheekhu kana mid ah tartamayaasha dugsiga hoose dhexe Jaabir bin Cabdilaahi su-aasha waxaan u jawaabaynaa waa 30 loo qaybshay 104. waayahay Cabdullaahi su-aashii xisaabteeda la weydiiyo tartamayaasha dugsiga Al-Anwaar ay garan waayeen Jaabir bin Cabdilaahi iyagana ma aysan ka faa'iideysan. ardayda tibixu taagan tiro 10 iyo tibixu taagan tiro 7 way garan waayeen. جواب كلمي جواب كلمي جواب كلمي جواب كلمي Cabdullaahi oo jawaabtii tognidu adigii sheegay jawaabtana 10 laga rabaa. may 10 iyo togan basaladay maadaama su-aasha ugu horreysay oo laabatay ta 10 iyo togan baa tii labaad miya ha 10 togan haddaad maqashaba waaba 10 ba 10 le waaye la taada ka raacday miya 10 waaye togan 10 waaye adiga fiirneena marka jawaabta taa loo jeeday laftirkaada su-aashan laba dugsi ay soo hareer martay salaadii ay haatan si ka faa'iideysana u hortaala waxay u dhicisay tibix u taagan tiro 10 ayaa loo qaybiyay 30 lagana jaray isla tibixdii si ay noogu soo baxdo -1 la hoos dhigay 4 waa tirada 10 oo ay tibixdu u taagan tahay. jawaabta uu salaad ka bixiyay ayaa ah jawaab aad loo soo dhaweeyay balse aan sax ahayn. salaad meenisa ka maqan waa -10 ama laga jaray 10 tibix soo sheego tabtaada waan soo helay kala ku nasiibsatay ya aqoon muu taada ka raacday taale li radabo taale ka maqan marka meenis ka maqan miya ha meenis 10 amal ha meenis 10 asoo bixis ababo afuufka جوابي كلمي وكاملي وقرب وقامس كعبنا كوي والدركي كافوتا 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 markan waa chemistry ardayda dhagaha afureen waxay ku socotaa su-aashan ardayda dugsiga Jaabir bin Cabdilaahi waana su-aashoodii ugu dambeysay qaybtan hore tartanka. neef ayaa muggeedu yahay 220 centimeter cubic markii uu heerkulka uu yahay 16 degree centigrade cadaadiskuna yahay 760 millimeter mercury. intee ayuu arday noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 770 millimeter mercury. aan ku celiyo mar labaad. neef ayaa muggeedu yahay 220 centimeter cubic markii heerkulka uu yahay 16 degree centigrade
cadaadiskuna yahay 760 milimitir mercury intee ayuu noqonayaa haddaba mugga marka cadaadiska laga dhigo 770 milimitir mercury marka saddexaad ee ugu dambeysa ardayda dugsiga jaabir dhegaha fura neef ayaa muggeedu yahay 220 sentimitir cubic markii uu heerkulka uu yahay 16 degree centigrade cadaadiskana uu yahay 760 milimitir mercury intee ayuu haddaba ardayda noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 770 milimitir mercury jawaabtan idinka sugaynaa ardayda jaabir bin cabdilaahi waxaa idinkaga fadhiyaa jawaabta su-aashii kimistariga ahayd ee la idin weydiiyey ardayda soo istaagtayna waxaan ka rajaynaya inay soo degdegto oo ay mikrofoonka kusoo dhawaato bismillaah anigu waa maamul kaltum cabdalla camar kana soo iskuulka jaabir bin cabdillah su-aashii nala weydiiyay haddii aan ka jawaabno insha Allah waxay noqon doontaa 217 sentimitir cubic waayahay cabdullaahi su-aashan waxay ahayd su-aashii ugu horreysay oo chemistry waxaa la weydiiyey oo tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi su-aashu waxay u dhaceysay neef ayaa muggeedu yahay 220 sentimitir cubic markii uu heerkulku uu yahay 16 degree centigrade cadaadiskuna uu yahay 760 mililitir ama milimitir mercury intee ayuu noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 770 milimitir mercury jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa oo waa 217 sentimitir cubic صح dugsiga hoose dhexe sare jaabir bin cabdullah laba dhibcood waxaan idin dhigayaa jaamacadda salaam qaybteeda engineering lagu barto insha Allah ka soo qaata baad al-afur su-aashii saxday صعب وإنا كسينا su-aashii saxday صعب وإنا كسينا su-aashii ugu dambeysay qaybtan hore ee barnaamijka waana su-aashii sideedaad ee sugud barnaamijka innaha su-aashii afaraad ee ardayda al-anwaar dhagaha fura waa su-aal kale oo kimistari ah neef ayaa mugeedu yahay 228 sentimitir cubic markii uu heerkulku yahay 15 degree centigrade cadaadiskuna yahay 750 milimitir mercury intee ayuu ardayay noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 760 milimitir mercury mar labaad aan ku celiyo su-aashan kimistariga neef ayaa mugeedu yahay 228 sentimitir cubic markii uu heerkulka yahay 15 degree centigrade cadaadiskuna yahay 750 milimitir mercury intee ayuu haddaba noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 760 milimitir mercury marka saddexaad ugu dambeysa neef ayaa mugeedu yahay 228 sentimitir cubic markii uu heerkulka uu yahay 15 degree centigrade cadaadiskuna uu sidoo kale yahay 750 milimitir mercury intee ayuu haddaba ardayay noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 760 milimitir mercury jawaabtan idinka sugnaa ardayda al-anwaar
waayahay kusoo dhow mikrofoonka. بسم الله مقع واسماني إبراهيم محمد كان سعة ترتميش سكول كلاموار سؤال جوابت تديان كورة علينا إن شاء الله وحين قدن تاوى لو بقى 25 سنتيمتر كيوبيك waayahay aan guddiga ku celiyo. su-aashan oo ahay su-aal kaloo chemistry waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga al anwaar su-aashu waxay u dhicisay neef ayaa muggeedu yahay 228 sentimitir cubic markii uu heerkulku uu yahay 15 digrii centigrade cadaadiskuna uu yahay 750 milimitr mercury intii ayuu noqonayaa mugga marka cadaadiska laga dhigo 760 milimitr mercury jawaabtay ka bixiyeen dugsiga al anwaar ayaan ah jawaabta saxda ah oo waa 225 sentimitir cubic. goorma la kala bixi doonaa ee jartooda waa bareeji dugsiga sare dugsiga hoose dhexe sare ee al anwaar 2 dhibcood waxaan idin dhigayaa dugsigiina hortiisa insha Allah ka soo qaata bacdul afur su'aashii saxday sacabu waa inaan ku siinaa su'aashii saxday sacabu waa inaan ku siinaa waa tahay intaasi saaxiib yaal waxaa noogu dhan su-aalaha qaybta hore ee barnaamijka goordhow natiijada innagoo ina siina yaraadi doona. waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wahdiga dugsiyada waayahay ardayda al anwaar iyo jaabir cabdilaahi tartanka u dhexeeya qaybta hore ayaan cabdulaahiyow soo idlaynay oo su-aalaha qaybta labaad ayaan gordhow gudgeli doonaa ee xaggee la kala maraya dugsiga jaabir bin cabdilaahi iyo al anwaar tartan xiise leh ay halkaani kusoo bandhigayaan tartankana waa laga dareemayaa inuu yahay mid finaal ah ama kulankii ugu dambeeyey dugsiyada jaabir bin cabdilaahi al anwaar qaybta hore ee tartanka waxaa su-aalaha lagu bilaabay dugsiga jaabir bin cabdilaahi 4 su-aal ay xaq u lahaayeen ayaa la weydiiyey 4tii su-aal 3 ka mid ay ka jawaabeen mid waa ay garan waayeen wax su-aala oo ay ka faa'iidaysteenna ma jirto sidaasay qaybta hore tartanka waxa ay ku haystaan 6 dhibcood dhanka al anwaar haddii aan eego 4 su-aal oo qaybta hore tartanka ay xaq u lahaayeen waa la weydiiyey 3 ka mid ay ka jawaabeen mid waa ay garan waayeen wax su-aal ay ka faa'iidaysteenna ma jirto sidaas iyagana waxa ay ku haystaan 6 dhibcood qaybta hore tartanka waxaa lagu kala nasanayaa dugsiyada jaabir bin cabdilaahi oo bareeja ah oo 6 dhibcood leh garba siman ayay qaybta koowaad tartanka ku nasanayaan goordhow ayaan isu salaaman doonaa qaybta kale ee barnaamijkeena warwareegi mayno weewean mayno guul wacan cadow ka waabto nolol wanaagsan waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa isoo noqod wanaagsan dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka tartan aqooneedka dugsiyada sare ee gobolka banaadir ee KNN iyo jaamacadda salaam tartankii ugu dambeeyey ama kama dambaysta ahaa ama faynalaha ahaa sidaad u taqaanaanba ayaan ku guda jirnaa oo qaybtiis labaad aan u gudbaynaa xilligan waxaa u dhexeeya tartankan jaabir bin cabdilaahi iyo al anwaar oo labaduba ka mid ah iskuulada sare ee gobolka banaadir kana soo gudbay dhammaan wareegyadii kale ee idaacadda oo midkood maanta uu gelayay kaalinta koowaad halka kan kalena uu xaqiijinaya kaalinta labaad ee barnaamijkan su-aashii shanaad waa su-aashii sagaalaad ee barnaamijka ahna su-aashii shanaad ee jaabir bin cabdilaahi dhegaha u fura waa su-aal biology ah waxaad soo sheegtaan saaxiibayaal xubinta ugu weyn ee jirka bini'aadamka mar labaad aan ku celiyo soo sheega xubinta ugu weyn jirka bini'aadamka marka saddexaad ee ugu dambaysa ardayda jaabir waxaa laydinka rabaa inaad soo sheegtaan xubinta ugu weyn jirka bini'aadamka
waayahay ku dhow mikrofoonka بسم الله مقعي حسن عبد الرحمن أحمد كنا سعد الدكسي سري جابر بن عبد الله جوابتي إنه إسكين waayahay aan guddiga hordhiga sax iyo qalad su-aashan oo ahayd su-aal biology waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jaabir bin cabdilaahi su-aashu waxay u dhaceysay sheeg xubinta ugu weyn ee jirka bini aadamka jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid saxa oo waa iskiin ama maqaarka waayahay jawaabta ay bixiyeen ayaa ah midda saxda ah toos ayaan sii soconaynaa maadaama waqtigeena hayo su-aashii kale ee barnaamijka waa su-aashii tobanaad ee sugud barnaamijka ahna su-aashii shanaad ee la weydiinayo ardayda kale ee al anwaar waxaad soo sheegtaan magaca lakabyada ama xuubabka uu ka kooban yahay maqaarka mar labaad aan ku celiyo soo sheega ardayay magaca lakabyada ama xuubabka uu ka kooban yahay maqaarka marka saddexaad ee ugu dambaysa ardayda anwaar waxaad idinka rabaa inaad soo sheegtaan magaca lakabyada ama xuubabka uu ka kooban yahay maqaarka waxaan idinka sugnaa waa jawaabta ardayda dugsiga al anwaar jawaabta fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad jawaabta lasoo degdegtaan ku dhowo mikrofoonka bismillaah magacayga waa mikaa'il nuur aadan kana socda dugsiga hoose dhexe sare al anwaar kis dhama yaasiin artan su-aasha jawaabteedan isku day waxay noqon doontaa insha allah dermis epidermis iyo hypodermis sax iyo qalad aan guddiga hordhigo su-aashan oo ahayd su-aal kaloo biology waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare al anwaar su-aashu waxay ahayd sheeg magaca lakabyada ama xuubabka uu ka kooban yahay maqaarka jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid saxa oo waa epidermis dermis iyo hypodermis su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa waa hagaag waa la ishayaa maanta mar kale waa tartankii xiisaha badnaa ee finaalka ee jaabir iyo al anwaar u dhexeeyey su-aashan waa taariikh ardayda jaabir ayayna ku socotaa waxaad soo sheegtaan ardayay bishii sanadkii u dhacay dagaalkii miraashi ee u dhexeeyey daraawiishta iyo ingiriiska mar labaad aan ku celiyo ardayay waxaad soo sheegtaan bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii miraashi ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriiska marka saddexaad ee ugu dambaysa su-aashan taariikhda hadhegaha u fura ardayda jaabir soo sheega bishii iyo sanadkii u dhacay dagaalkii miraashi ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriiska waxaan rajaynaya inaad garateen كله ميكروفونك بسم الله مقعي وفاضل سعيد شيخ أول كنا سعت سكول جابر بن عبد الله سؤال جوابت صودا إن شاء الله وحين قدوا أنت جون كن سجال بقول صدحي تمانكي صح يا غلط su-aashan oo ahayd su-aal taariikh waxaa la weydiiyey oo tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi su-aashuna waxay ahayd sheeg bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii miraashi ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriis jawaabtay ka bixiyeen jaabir bin cabdilaahi maahan mid saxa haddii ay ka faa'iidaysan karaan ardayda kale ee alanwaar ka faa'iidaysigu waqti kale oo laysu sugaya ma lahan ee soo degdeg haddii aad hayso fadlan soo degdeg kusoo dhawo mikrofoonka magacadii jawaabta bismillaah magacayga waa mikaa'il nuur aadan kana socda dugsiga hoose dhexe sare al anwaar akis dhama yaasiin artan su-aasha jawaabteedaan isku day waxay noqon doontaa insha allah
bishii January sanadii 1910 mar kale guddiga su-aashii taariikhdeeda soo hareer martay tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi al anwaar iyagana maysan ka faa'iideysan haddaba jawaabta saxda ah yaa looga fadhiyaa kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde cabdullaahi jawaabta saxda ah su-aashu waxay ahayd su-aal taariikha u dhaceysa sheeg bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii miraashi ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriis jawaabta sax waxay noqonaysaa waxa uu dhacay bishii December sanadkii 1919 mar kale haddii aan ku celiyo waxa uu dhacay bishii December sanadkii 1919 jawaabti kulmiye waa kaamile ku qorabuga maskaxdana ku haye ku darbeedka aqoonta waa hagaag markan waa su-aal kale oo taariikha waa su-aashii 12aad ee barnaamijka ahna su-aashii 6aad ee ardayda al anwaar waxaad soo sheegtaan sanadkii iyo bishii uu dhacay dagaalkii higlagaab ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriiska mar labaad aan ku celiyo ardayda waxaad soo sheegtaan bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii higlagaab ee daraawiish iyo ingiriiska u dhexeeyey marka saddexaad ee ugu dambaysa aan ku celiyo su-aashan taariikhda ah soo sheega bishii iyo sanadkii u dhacay dagaalkii higlagaab ee u dhexeeyey daraawiish iyo ingiriiska waxaan idinka filanaa waa jawaabta ardayda dugsiga al anwaar jawaabta fadlan jawaabta soo degdeg bismillaah ana magaca daarus maxmuud ortotoma isku qalawar extremation arsan insha Allah biidnillah jawaabtan xad doonta 1920 bisha December waayahay aan guddiga hordhiga saxiiqada jawaabtaasi su-aashan oo ahayd su-aal kale oo taariikha una dhaceysa sheeg bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii higlagaab ee uu u dhexeeyey daraawiish iyo sidoo kale ingiriis jawaabtii al anwaar ay ka bixiyeen maahan mid sax haddii ay ka faa'iideysan karaan ardayda kale ee jaabir bin cabdilaahi ka faa'iideysi wiilas ma sugayo walaalayaal soo degdeg haddii aad haysaan mar kale soo dhawow bismillaah magacayga waa faadimo saciid sheekh qabuuka kana socota iskuulka jaabir bin cabdillaah su-aasha jawaabta isku day insha Allah waxay noqon doontaa Janaayo 1920 mar kale aan eegna sax iyo qalad su-aashii kale taariikhda ahayd la weydiiyey tartamayaasha dugsiga al anwaar ay ka jawaabi waayeen jaabir bin cabdilaahi iyagana ma aysan ka faa'iideysan su-aashii labaad ee taariikhda way nagu soo laabanaysaa kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde kulmiyow ka jawaab labada kooxba keeni weyde cabdullaahi haye cabdiqaniyow sheekadu waxay maraysaa aan ka wada jawaabno aan wada garan weyno taasoo muujinaysa ififaalo ah in waqti nagu sii dheeraa karo su-aashu waxay ahayd su-aal kale oo taariikha sheeg bishii iyo sanadkii uu dhacay dagaalkii higlagaab ee u dhexeeyey daraawiish iyo sidoo kale ingiriis jawaabtoosa waxay noqonaysaa bishii abril 1905 mar kale haddaan ku celiyo bishii abril 1905 waana filayaa in tartamayaasha iyo dhegeystayaashaba ay meel ku qorteen waqti kasta haddii la qaato inagaa ku faraxsan cabdullaahi waana sii wadi doonaa ilaa ardaydu dadaalkooda aqooneed ay soo bandhigayaan annagana su-aalo baan soo bandhigi doonaa ha ka jawaabin kuwii ka jawaabi waayaan inagaa ka jawaabi doonaa ilaa ay ka haraan su-aalahan markan waa suugaan su-aashanna waxay ku socotaa ardayda jaabir bin cabdilaahi waa su-aashoodii 7aad marka la fiiriyo barnaamijka waa su-aashoodii ugu dambeysay haddiise waqti dheeri ha loo baahdo su-aalo kale aan ku darsan doonaa waxaad soo sheegtaan ardayay abwaankii tiriyey gabayga ay ka mid yihiin tudcyadan
goortuu sidkeedii go'ay ee galabtii fool qaaday iyadoo candhada giijisay oo godolku sii daysay garaad nimaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixine annagoon gantaalada dhiciyo haysan qori gaaban mar labaadaan ku celiyo abwaankee tiriye gabayga ay ka mid yihiin tudciidan soo socda goortuu sidkeedii go'ay ee galabtii fool qaaday iyadoo candhada giijisay oo godolku sii daysay garaad nimaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixine annagoon gantaalada dhiciyo haysan qori gaaban marka saddexaad ee ugu dambaysa goortuu sidkeedii go'ay ay galabtii fool qaaday iyadoo candhada giijisay oo godolku sii daysay garaad nimaan lahayn bay la tahay waad ka gaagixine annagoon gantaalada dhiciyo haysan qori gaaban gabayga ay ka mid yihiin abwaankee tiriyey weeyaan ardayd baa nala joogta ka socda dugsiga jaabir bin cabdilaahi بسم الله مقعي وحسن عبد الرحمن أحمد كنا سعود الدكسي سر جابر بن عبد الله جوابتنا إن شاء الله وحين قدمت عبد الله سلطان تيم عادي صحيح قردان قد يقول su-aashan oo ahayd su-aashii ugu horreysay oo suugaana jawaabta ay ka bixiyeen tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi waa mid sax ah su-aashii saxdaye صعب وين كسينا su-aashii saxdaye صعب وين كسينا waayahay markan waa su-aal kale oo gabay ah ama su-aal kale oo suugaan ah waxay ku socotaa ardayda al-anwaar oo ay u tahay su-aashoodii toddobaad ama su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijkan ahna su-aashii 14aad ee si gud barnaamijka waxaad soo sheegtaan abwaankee tiriyey gabayga ay ka mid yihiin tuducyadan anna dabagalkiisaan aqaan deelka maansada ee dibnihii tiraabanna rag waa ka dambeeyaane anigana dabuubtayda maqal waan ku daaficiye mar labaadaan ku celiyo soo sheega abwaankee tiriyey gabayga ay ka mid yihiin tuducyadan anna dabagalkiisaan aqaan deelka maansada ee dibnihii tiraabanna rag waa ka dambeeyaane anigana dubuubtayda maqal waan ku difaaciye ama waan ku daaficiye marka saddexaad ee ugu dambaysa ardayda al-anwaar dhagaha u fura su-aashan suugaanta anna dabagalkiisaan aqaan deelka maansada ee dibnihii tiraabanna rag waa kaga dambeeyaane anigana dabuubtayda maqal waan ku daaficiye abwaanka tiriye ayaa layska rabaa ku dhowo mikrofoonka bismillaah magacu waa maal jino cabdulla tartamaysa dugsiga hoose dhex sare al-anwaar jawaabta waa waxaa tiriyey maxamed kaan feedhoole saxi qardaan guddiga hordhigo su-aashan oo ah su-aal kale oo sugaana waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee al-anwaar jawaabta ay ka bixiyeenna waa mid sax ah oo waa maxamed kaahin feedhoole su-aashii saxdaye صعب وين كسينا su-aashii saxdaye صعب وين كسينا waa hagaag intaasi waxaa noogu soo idlaaday su-aalaha qaybta hore iyo qaybta dambe ee barnaamijkeennan ay ku tartamayaan al-anwaar iyo jaabir bin cabdilaahi ee mid kasta uu doonayo inuu kaalinta koowaad galo goordhow natiijada halka la kala marayo ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo waxaa inoo xiga waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waa hagaag saaxiibayaal isu soo noqod wanaagsan idaacadda kulmiye ee muqdisho ayaad nagala socotaan hirka f m eber markaadis muqdisho iyo deegaanada ku geedaaman sidoo kale caalamka oo dhan waxaad toos nooga maqlaysaan baraheenna internetka waxaa aan geli doonaa goordhow sida cabdulaahi uu inoo shaaci doono tartan kale oo dheeraad ah hase ahaatee cabdulaahi halka natiijada la kala marayo dugsiyada jaabir bin cabdilaahi iyo al-anwaar dhibcaha haystaan
cabdiqaniyow sidaad qof walba iska dareemi karo tartanka waxa uu ku dhammaaday barbardhac oo labada dugsi natiijadii ay ka keensadeen guud ahaan su-aalihii laga weydiiyey min 10 buunta ayay keeneen dugsiga jaabir bin cabdilaahi su-aalaha lagu bilaabo 7 su-aal oo la weydiiyey 5 ka mid ay ka jawaabeen wax su-aal ay ka faa'iideysteen ma jirto 10 dhibcood ay guud ahaan tartanka urursadeen halka dugsiga kale la tartamay Al-Anwar sidoo kale 7 su-aal la weydiiyey 5 ka mid ay ka jawaabeen waxaana aysan ka faa'iideysanin iyagana ay 10 dhibcood ay keensadeen sidaas daraadeed waxaa loo baahnaan doonaa su-aalo dheeraad in lagu daro si labada dugsi mid qura uu guuleysto waayahay su-aalihii ayaan si toos ah u gudageli doonaa sidii marka hore lagu bilaabay dugsiga jaabir bin cabdilaahi ayaana su-aashan lagu bilaabayaa waxaan ku dari doonaa mar walba ardayga xasuusnaada min 2 su-aalood tusaale ahaan 2 su-aal ayaan hadda ku darnay 2 su-aalood haddii lagu kala adkaado tartanka meesha noogu dhammaanaya haddii lagu kala adkaan waayo oo labada ka wada jawaabaan ama ay ka wada jawaabi waayaan 2 su-aal kale oo dheeraad ah ilaa ay noqoto in dugsiyadu kala adkaadaan oo midkood uu galo kaalinta koowaad kan kalena uu sidaas ku go'aansado kaalinta labaad su-aashan waa su-aal fiisigiisa fadlan dhagaha u fura ardayda jaabir bin cabdilaahi haddii mawjad hirbaceedu yahay 10 mitir xawaaraheeduna yahay 340 mitir per second haddaba waa maxay rakaadka mawjadda mar labaad aan ku celiyo haddii mawjad hirbaceedu yahay 10 mitir xawaaraheeduna uu sidoo kale yahay 340 mitir per second ardayda jaabir waxaa laydinka rabaa waa maxay rakaadka mawjadda markii saddexaad ee ugu dambaysa su-aashan fiisigiiska aan ku celiyo haddii mawjad hirbaceedu yahay 10 mitir xawaaraheeduna yahay 340 mitir per second haddaba waa maxay rakaadka mawjadda waxaan filayaa inaad garateen waayahay ardayda dugsiga jaabir bin cabdilaahi jawaabta gabar baa kasoo istaagtay ku dhowo mikrofoonka bismillaah anigoo magacayga kaltum cabdalla caamir kana socda iskuulka jaabir bin cabdilaahi su-aasha noola weydiiyay haddii aan ka warcelin insha allah waxay noqon doontaa 34 hertis waayahay cabdullaahi su-aashan waxay ahayd su-aalaha dheeraadka aan ku darno tii ugu horreysay waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga jaabir bin cabdilaahi su-aashu waxay ahayd haddii mawjad harbaceedu yahay 10 mitir xawaarihiiduna uu yahay 340 mitir per second haddaba waa maxay rakaadka mawjadda jawaabta ay ka bixiyeen waa mid saxa oo waa 34 hertis su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa markan waa su-aal kale oo fiisigiis ah waxay ku socotaa ardayda dugsiga Al-Anwar waa su-aashii 16aad ee barnaamijka waana su-aashoodii 8aad haddii mawjad ay ku safri karto xawaaradan 230 mitir per second hirbaaceeduna yahay 2.1 mitir haddaba ardayay waa maxay rakaadka mawjadda mar labaad aan ku celiyo su-aashan fiisigiiska ah dhagaha u fura fadlan haddii mawjad ay ku safri karto xawaaradan 230 mitir per second hirbaaceeduna uu yahay 2.1 mitir haddaba waa maxay rakaadka mawjadda marka saddexaad ee ugu dambaysa aan ku celiyo su-aashan haddii mawjad ay ku safri karto xawaaradan 230 mitir per second hirbaaceeduna uu yahay 2.1 mitir haddaba ardayay waa maxay rakaadka mawjadda waxaan filayaa inaad garateen qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin bara afkaaga bilowginkaaga bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin
waa tahay ardayga ka socda alanwaar soo dhawow بسم الله أنا مجيء دارس محمود أو ترتمى سكوك الأمار إكس لما يصير عرتن إن شاء الله بإذن الله جوابت هذا كمان عن الحلقة دونتا بقول سجال دبيع شان لابو هرتس noogu celi markale بقول إيه سجال بقول إيه سجال دبيع شان لابو هرتس waayahay aan guddiga hordhigo su-aashan oo ahayd su-aal kale oo fiisigiisa kana mid a su-aalaha dheeraadka ee tartanka waxaa la weydiiyo tartamayaasha dugsiga alanwaar haddii mawjad ay ku safri karto xawaare dhan 230 mitir per second hirbaaceeduna uu yahay 2.1 mitir haddaba waa maxay rakaadka mawjada jawaabta ay ka bixiyeen ayaa ah jawaabta saxda ah waa 109.52 hertz su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa waa tahay weli waa barbardhac waana sii socon doonaa laba su-aal kale oo dheeraad ayaan ku daraynaa su-aalahan waa chemistry ardayda dugsiga jaabir bin cabdilaahi ayay su-aashan chemistryga ku socota waa su-aashii 17aad ee si guud barnaamijka halkii 14 su-aaluhu ka ahaayeen waana su-aashoodii 9aad halkii 7 su-aal ay xaq uga lahaayeen waxaad soo sheegtaan arday ay calaamada kiimiko ee chemical symbols loogu yeero iyo culeysyadooda atomic numbers loogu yeero dhammaan curiyaalkan soo socda oxygen iyo helium mar labaadaan ku celiyay arday dhagaha u fura su-aashan chemistryga ah soo sheega calaamada kiimiko ee loo yaqaano chemical symbol iyo culeysyadooda atomic numbers loogu yeero dhammaan curiyaalkan soo socda oxygen iyo helium marka saddexaad ee ugu dambeysa waxaad soo sheegtaan calaamada kiimiko ee chemical symbol iyo culeysyadooda atomic numbers dhammaan curiyaalka kale ah oxygen iyo helium waxaan rajaynayaa in aad jawaabta la soo degdegtaan bara afkaaga bilowginkaaga bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin bara afkaaga bilowginkaaga bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin ma'na waa hayaa waayahay arday baa ka socda jaabir بسم الله مجيء وفاء عبد القادر سمان أهنا وترتمي سكول جابر عبد الله أكسجين سيمبل كيسو و O atomic number كيسو و سديد هيليوم سيمبل كيسو و HE atomic number كيسو و لبا aan eegno sax iyo qalad jawaabtaasi su-aashan oo ahayd su-aal chemistry kana mid a su-aalaha dheeraadka ee tartankaanu ku darnay jawaabta ay ka bixiyeen oo tartamayaasha jaabir bin cabdilaahi la weydiiyey waa mid sax ah su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa waa hagaag waa su-aal kale oo chemistry ah waa su-aashii 18aad ee barnaamijka ahna su-aashii 9aad ee ardayda dugsiga al anwaar waxaad soo sheegtaan calaamada kiimiko ee chemical symbol loogu yeero iyo culeysadooda oo sidoo kale atomic number loogu yeero dhammaan curiyaalkan soo socda hydrogen iyo boron mar labaad waxaad soo sheegtaan calaamadaha kiimiko ama calaamada kiimiko iyo chemical symbols loogu yeero iyo culeysyadooda oo atomic numbers la yidhaahdo sidoo kale dhammaan curiyaalkan kala ah hydrogen iyo boron marka saddexaad ee ugu dambeysa ardayda dugsiga al anwaar dhagaha u fura soo sheega calaamada kiimiko oo chemical symbol la yidhaah iyo culeysyadooda oo atomic number la yidhaah dhammaan curiyaalkan kale ah hydrogen iyo boron waxaan idinka sugnaa waa jawaabta bara afkaaga bilowginkaaga bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin bara afkaaga bilowginkaaga bogsi qoraalka akhriska buuga bayaanu meerin
معنى وهيا معنى وهيا ardayda dugsiga Al-Anwar waxaa soo idlaaday waqtigii daqiiqada ahaa ee lidin qabtay fadlan haddii aad jawaabta haysaan soo degdega haddii kale waa idinka gudbi doonaa soo degdeg ardayga soo istaagayow kuna soo dhow mikrofoonka magacaada iyo jawaabta bismillaah magacaygu waa mikaa'il nuuraadan kana socda dugsiga hoose dhexe sare Al-Anwar dhammayaasin artan su-aasha jawaabteeda aan isku day waxay noqon doontaa insha Allah hydrogen sample-keeda waa H atomic number-keedana waa 1 baron ayadana sample-keeda wuxuu noqonayaa BR atomic number-keedana waa 5 waayahay aan sax iyo qalad guddiga hordhigo su-aashan oo ahayd su-aal kale oo chemistry la weydiiyey tartamayaasha dugsiga Al-Anwar jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah su-aashii saxdaye صعب وين كسينا su-aashii saxdaye صعب وين كسينا waa tahay weli waa lishayaa laba su-aal kale oo dheeraad ayaan ku daraynaa su-aashan waxay ku socotaa Jaabir bin Cabdullaahi waa su-aal xisaab ah dhigaha u dhiga ururka B ama ba ayaa ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta ama T waxa uu ka kooban yahay 1 ama 1 2 4 8 iyo 10 haddii arday ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 waxaa soo saartaan urur duleedka ba iyo ta mar labaad aan ku celiyo ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 iyo 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 soo saara urur duleedka ba iyo ta marka saddexaad ee ugu dambaysa su-aashan xisaabta dhagaha u dhiga ardayda Jaabir ururka ba ayaa ardayda ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta ayaa sidoo kale waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 iyo 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 waxaa la idinka rabaa inaad soo saartaan urur duleedka ba iyo ta wagaag ardayad ka socota dugsiga Jaabir baan la joogta ku dhaw mikrofoonka bismillaah anigoo magacayga kaltum Cabdalla Camar kana soo iskuulka Jaabir bin Cabdullah su-aashan la weydiiyay hadii aan ka warcin insha Allah waxay noqon tahay urur duleedka waa 2 3 7 iyo 10 Cabdullaahi haye su-aashan oo ahayd su-aal xisaaba kana mid ah su-aalaha dheeraadka ah ee tartanka aan ku darnay waxaa la weydiiyey tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Cabdullah jawaabta ay ka bixiyeen maahan mid sax ah haddii ay ka faa'iideysan karaan ardayda kale ee ka socota dugsiga Al-Anwar su-aashan hota haddii ay ka faa'iideysan karaan bismillaah magacayga waa Suleymaan Cusmaan Mursal ka socda iskuulka Al-Anwar su-aasha jawaabteedu waxay noqonay ururka ba waa 1 2 5 6 9 10 ururka ta waa 3 5 6 7 9 waayahay aan mar kale sax iyo qalad eegno su-aashan oo ahayd su-aal xisaaba la weydiiyey tartamayaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jaabir bin Cabdullah ay garan waayeen dhanka dugsiga Al-Anwar iyagana ma aysan ka faa'iideysan yaa looga fadhiyaa haddaba
wakaalintaade jawaab kulmiye waan kugu kalsoone jawaab kulmiye wakaalintaade jawaab kulmiye waan kugu kalsoone jawaab kulmiye wakaalintaade jawaab kulmiye cabdulaahi haye cabdiqani su-aashan waxay su-aal xisaaba u dhaceysay ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 8 ururka taana waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa iyo 10 soo saar urur duleedka ba iyo ta jawaabta waxay noqonaysaa waa 5 6 9 mar kale haddaan ku celiyo jawaabtu waxay tahay waa 5 6 iyo 9 jawaabti kulmiye وكامله وقربك مسكعدنا كوهي وطرفك أفوتا وقربك مسكعدنا كوهي وطرفك أفوتا markan waa su-aal kale oo xisaab ah waxayna ku socotaa ardayda al anwaar dhagaha u fura ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 iyo 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 soo saara dhextaalka ba iyo ta mar labaad aan ku celiyo ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 iyo 10 haddii ururka ba ardayay iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 waxaad soo saartaan dhextaalka ba iyo ta marka saddexaad ee ugu dambaysa dhagaha u fura su-aashan xisaabta ah ardayda lanawar ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 iyo 8 ururka ta waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 iyo 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa 10 waxaad soo saartaan dhextaalka ba iyo ta waayahay ardayda dugsiga al anwaar jawaabta lidinkaga fadhiya fadlan soo degdeg oo mikrofoonka ku dhowow bismillaah magacayga waa suleymaan cusmaan mursal ka socda iskuulka al anwaar su-aasha jawaabteeda waxay noqonay 4 iyo 8 waayahay aan guddiga hordhiga saxay qalad su-aashan oo ahayd su-aal xisaaba waxaa la weydiiyey u tartamayaasha dugsiga hoose dhexe iyo sare al anwaar su-aashu waxay u dhaceysay ururka ba ayaa ka kooban 3 4 7 8 ururka taana waxa uu ka kooban yahay 1 2 4 8 10 haddii ururka ba iyo ururka ta ay ka mid yihiin ururka guud ee 1 ilaa iyo 10 soo saar dhextaalka ba iyo ta jawaabta ay ka bixiyeen dugsiga al anwaar ayaa jawaabta saxda ah oo waa 4 iyo 8 su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa su-aashii saxdaye sacabku waa inaan ku siinaa waa hagaag sidii ballantu ahayd min laba su-aal ayaa lagu darayey si ugu yaraan ardaydu ay halkaasi uga kala baxaan ballantuna waxay ahayd mar kasta ee su-aal laba ah lagu daro ee lana kala adkaado halkaa tartanka uu ku istaagayo tartankii ayaa noo soo idlaaday goordhowna natiijada kama dambaysta ah ayaad heli doontaan iyo tartankii guud ahaan oo aan soo xirino saaxiibayaal waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan
waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa maanta oo ay tahay maalintii ugu dambeysay oo dugsiyada ku tartamaya kaalinta koowaad halka midka laga adkaadan oo kaalinta labaad gelaya aan halkan uga qabanay Al-Anwar iyo sidoo kale Jaabir bin Cabdillaahi waxaana aan ku wareejinay mikrofoonka Cabdullaahi Maxamed Cali si uu halkan uga sheego natiijada kama dambaysta iyo tartankii xitaa maanta ay noqotay in aan waqti dheeraad ah isla aadno Cabdullaahi cabdiqani waa mahadsan tahay tartanka sidaa sheegtay waqti dheeraada ayaa la isla aaday oo waqtigii loogu talagalay waxa uu ku soo dhammaaday barbardhac su'aalo dheeraada lagu daray su'aalihii dheeraadka waa ay soo gabagaboobeen balse sida caadada noo ahaydba intaan natiijada ku dhawaaqin waxaa jirto cabasho aan tartamayaasha weydiino haddii ay jiraan su'aal u saxsaneed oo laga qalday iyo su'aal dhanka kale u saxsaneed oo ama ka qaldaneed oo inaga aan u saxnay marka waxaa jirto labada dhinac hal dhinac oo keliya iyo cabasho ka timid oo ah dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jaabir bin Cabdillaahi oo sheegeen in su'aal ka mid ah su'aalihii la weydiiyo tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi ahaayeen su'aalihii dheeraadka ahaa ay qaldeen balse loo saxay dib markaan ugu laabanay su'aashu waxa ay tahay waa su'aal chemistry ah waxa la weydiiyay sheeg calaamadaha chemical samples iyo culeysyadooda atomic numbers dhammaan canaasirtan soo socoto oo kala ahaa hydrogen iyo sidoo kale boron waxa ay ku jawaabeen sida ay sheegeenba waa ay saxeen balse boron chemical sampleskiisa ay waxa ay soo gudbeen inay yiraahdeen BR halka laga rabay B bal aan dhageysano su'aashaas oo jaran iyo jawaabta ay ka bixiyaan dugsiga Al-Anwar waa hagaag waa su'aal kale oo chemistry ah waa su'aashii 18aad ee barnaamijka ahna su'aashii 9aad ee ardayda dugsiga Al-Anwar waxaad soo sheegtaan calaamada kiimika ee chemical symbol loogu yeero iyo culeysadooda oo sidoo kale atomic number loogu yeero dhammaan curiyaalkan soo socda hydrogen iyo boron ardayda dugsiga Al-Anwar waxaa soo idlaaday waqtigii daqiiqada ahaa ee lidin qabtay fadlan haddii aad jawaabta haysaan soo degdega haddii kale waa idinka gudbi doonaa bismillaah magacaygu waa Mikaa'il Nuuraadan kana socda dugsiga hoose dhexe sare Al-Anwar kisdhama yaasin artan su'aal jawaabteeda aan isku day waxay noqon doontaa insha Allah hydrogen sample-keeda waa H atomic number-keedana waa 1 boron ayadana sample-keeda wuxuu noqonayaa BR atomic number-keedana waa 5 cabdiqani marka saad maqlaysidba su'aasha qaybta hore waa ay saxeen oo hydrogen way sheegeen H 1 gramna waa ay sheegeen sidoo kale meesha laga rabay B oo kaliya ay R ku dareen oo BR ay yiraahdeen marka taasoo noqonayso magaca curiye kale sidaas darteed su'aashaas markii dib loogu laabto waa ay qaldan tahay oo halkaasi qaybta hore ee tartanka su'aalihii dheeraadka ahaa qaybtiisa labaad su'aalihii la weydiinayay mid kamid ah ay qaldeen dugsiga Al-Anwar sida caadada noo ahayd horena aan soo sameynay macnaheedu waxa uu noqonayaa su'aashaas hadii laga qaldo Al-Anwar in tartanka halkaas uu ku soo gabagaboobayo natiijada guud ee tartanka hadii aan ku dhawaaqo 7 su'aal iyo 7 su'aal ay dugsi walba xaq u lahaa oo 14 su'aal ay tartanka ugu talagalnay waxaan raacinay 3 su'aal oo dheeraad ahayd 10 su'aal ayaa la weydiiyay dugsiga Jaabir bin Cabdillaahi 10 su'aal la weydiiyay 7 kamid ay ka jawaabeen su'aalna ma aysan ka faa'iideysanin sidaasi dhibcaha guud ee heestaan waa 14 dhibcood guud ahaan tartanka markaan isku soo darno dugsiga kale ee Al-Anwar ee la tartamay 10 su'aal la weydiiyay 6 kamid ay ka jawaabeen wax su'aal oo ay ka faa'iideysteen ma jirto sidaas darteed guud ahaan tartanka dhibcaha ay arursadeen waa 12 dhibcood tartanka wuxuu inoogu soo gabagaboobayaa dugsiga Al-Anwar oo 12 dhibcood leh iyo dugsiga kale Jaabir bin Cabdillaahi oo 14 dhibcood leh waxaana sidaasi koobkii aan soo wadnay muddada bisha ku dhow ee tartan aqooneedka dugsiyada sare ee idaacadda kulmiye jaamacadda Salaam ay taabagelinayso ku hantay sanadkan 2020 dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jaabir bin Cabdillaahi waayahay Cabdullaahi ma santahay waqtiga ina kulaalay awgi warkii duhurna uu soo dhow yahay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo agaasimaha idaacadda noo soo xiri doona Ustaad Iftaax Afyare madaxa xiriirka arrimaha bulshada jaamacadda Salaam tartankii ay jaamacadda taabagelineysay su'aalahana ay soo diyaarisay ee maanta soo idlaaday Ustaad Iftaax ku dhawo mikrofoonka adigan ku bilaabaya
بسم الله الرحمن الرحيم أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت بدل ما جرو إن شاء الله كم هاتسن وبرامج كان أسوق جبي ujeedka barnaamijkan aan u qabanay uu badnaa waxaa ka mid ahaa isdhexgalka ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare waxaa kaloo ka mid ahaa oo ahdaafta aan ka damacsaneyn waxay ahayd in ardayda lagu dhiso moralkooda ee ku tartamaan tacliinta jaamacaddu waxay u mahad celinaysaa guud ahaan idaacadda kulmiye oo barnaamijkan qabtay oo taabagelinayay waxaa kaloo u mahad celinaynaa guddigii barnaamijkan waday oo guddiga oo gudoomiye u ahaa Cabdiqani iyo tiimkiisa guud ahaan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa Professor Dalxa oo barnaamijka qaybtii ugu dambeysay finalka maanta dabcan hadal ka jeediyay asagna waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa guud ahaan macallimiintii soo diyaariyay su'aalaha lagu tartamayay ay ka mid yihiin Macallin Axmed Macallin Cabdikariin iyo Macallin Cabdiqaadir iyo Macallin Zakariya dhammaantood waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa tartanka tiimka isku dabariday ee soo diyaarinayay su'aalaha ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa insha Allah kaamiramanka jaamacadda oo qayb libaax ka qaatay injineer Cabdirashiid iyo ardayda kaalinta koowaad ee dabcan iskuulka Jaabir bin Cabdullaahi iyo kaalinta labaad ee iskuulka Al-Anwaar iyo kaalinta saddexaad iskuulka Macmuur ayagana aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa iyo guud ahaan xafiiska waxbarashada jaamacadda Salaam waxaa kaloo su'aan idinkaga wadaa salaan guud maadaama tartanka maanta ah final gudoomiyaha guud ee jaamacadda Salaam Ustaad Bashiir Owdiini oo u hambalyeynaya guud ahaan 32 iskuul ee barnaamij ka qayb galay aad iyo aad aan u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waayahay agaasimaha idaacadda kulmiye ayaan siinayaa si uu isaguna kelimadiisa halkan uga yidhaahdo waqtiga in hayaa wiil waa mahadsantahay Cabdiqani waa sidaa sheegtay waqtiga aad noo haya waxaan rabaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hore inaan u mahadnaqo oo bisha barakaysan gaarsiiyey naguna dhameeyay anagoo dhammaanteen wada caafimaad qabna ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ama ka baryayaa inuu cibaadadeena iyo salaadeena iyo soonkeeniba ilaahay noo aqbalo intaa kadib waxaan rabaa inaan mahad celiyo jaamacadda Salaam oo runtii ka mid ah jaamacadaha hormuudka u ah jaamacadaha dalka ka jira oo barnaamijkan taabagelintiisa iyo su'aal dirintiisa iyo diyaarintiisaba runtii qayb weyn ka qaadatay iskuulada ka qayb galay ayaa sidoo kale mahadsan labada soddonka dugsi gaarayay iyo sidii uga aqbaleen barnaamijka ka qayb galaan saddexda iskuul ee kaalimaha koobaad iyo labaad saddexaad galan ayagana aad u mahadsan yihiin ujeedku ma ahayn in anagu ujeedkan waxa weyn aqoonta lagu tartamo haddii iskuulkaaga laga badiyey aqoon ma lihi micnuhu maaha iskuulkaaga waa liitaa maaha micnuhu waa tijaabo iyo hore aan u socono dhammaanteen waxaan rabaa sidoo kale waxyaabaha nagu soo laalaabanaya naftigeena oo su'aalaha qaar ahaa oo jaamacadda iyo guddigaba ku soo noqonayay iyadoo naftigeena casharro annagu aan ka baranay idaacad ahaan iyo jaamacaddu ay ahayd waa sixi doona haddii la yidhaahdo guddigii rabaa sidoo kale iyo dadkii kale gacanta ku hayay shaqada dhammaantood inaa mahadnaqo dhammaantiin aad mahadsantihiin ramadaan wanaagsan annagoo idin jecel annaga oo nahmu qaba waana ramadaan dambe waayahay dhammaanteen waa guulaysan aad iyo aad u mahadsan yahay agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax dohana saaxiib barnaamijkeennii aan soo wadnay muddada bilka ahayd aniga Cabdullaahi intaas ayuu saaxiib nooga dhan yahay jaamacadda Salaam idaacadda kulmiye mar walba waxay idin leedahay ramadaan mubarak ciid wanaagsan